iskahorimaad xooggan oo saaka aroortii hore dhexmaray ciidamada booliska magaalada Berbera iyo mid ka mid ah shacabka magaalada Berbera oo lagu magacaabo Mujaahid Faysal Ahmed Meygag oo loo yaqaan Faysal Wadka kaasoo ay howlgal dumina ku soo qaadeen ciidamada uu hogaaminayo taliyaha qaybta booliska gobolka Saaxil gaashaan la dhexe Aadan Cabdi Cawaale Khushi dhulkaas oo ku yaala xaafadda shacabka ee magaalada Berbera oo muran xooggan ka taagan yahay waxaana iskahorimaadkaasi ka hadlay taliyaha qaybta booliska gobolka Saaxil Aadan Cabdi Cawaale Khushi halka saaqa waxa ka jirtay howlgal ka jirtay maxaa ku raday fulin dawladda hoose dhulka kan oo sharci darro uu ku dhisanayay nin Faysal la yiraahdo ayaa ciidanka bileysku ay ka howlgaleen oo fulinahayd oo dawladda hoose ay howlgalka ay wadatay ka bacdi markii ciidanka yimi qoribu la soo baxay rasaasku ku riday dadkii xaafadda ku jiray oo dhamina dhagaxay dhulkay taabteen askarta waxa soo gaaray dhaawac ilaa 10 askari oo dhagax ayaa soo gaadhay dadka shacabka waxaan qabanay 10 qof ayaan qabanay oo xabsiga ku jira isagina nasiib darro uu naga baxsaday laakiin gacantaan ku soo dhigi doonaa waa dhulkii dawladda weeyaan xiradii guutadu waa tan ee ciidanka militarigu sidaa darteed sharci darro ku deganaa bulukeetigii uu doonayay inuu ku dhistana raqdiisu wata taalaay amarka idinku howlgalka ku sameeysan gudoomiyaha gobolka ayaa bixiyaa taas waxa bixiyay gudoomiyaha deegaanka ayaa lahaa oo furiye ay magaranaysaa dhulkan ku shaqalay sidaa darteed sidaas baan howlgalkan ku galay waxa iyaguna iskahorimaadkaasi ka hadlay fariin u diray golaha deegaanka degmada Berbera iyo maamulka gobolka Saaxil laba xildhibaan oo ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland iyo Sultan Ali Saleebaan oo ka tirsan salaadiinta gobolka Saaxil marka kulli wixii xal lagu raadin karo xabada laga dayaan wallahi maadaama golina badanahay xabadi waxba ma tarto hadii la yiraahdo kulli qolooyin loo diray marka ninkaas oo leeyahay hawshiisa kalena kamid baa nahay xildhibaan kaniba damba quun dhacay oo wax la qaban kari lahaa oo odayaal qaban kari lahaayeen inay meesha ka dhacday faham laama ka dhacday basaas waa la riday nin baa meel ku soo jira la yiri oo la yiraahdo wadka annagu maanaan arag oo wax xal yar u baahan xabad laga jawaabayo taasuna ma aha wax meesha qabta waxaan u leenahay marka xal loo waayo xabad ku timaada adduunyada halkan waxaynu Soomaaliland ku noolaataa waa nabadgelyadana waa inaynu wada ilaashano shacab iyo dawladba dadkii ammaanka loo diray baa imka loo tirinayaa inay arinta faraha kula jiraan oo la cadeynaya ummadoo dhan ka qaylinaysa waana ka sii dari doontaa waxaan joognay iyagoo jooga intaas oo gaas oo ay ku xiran yihiin militariga siyaada dhanka kale waxa isna ka hadlay iskahorimaadkaasi xooggan ee dhexmaray ciidamada booliska iyo mid ka mid ah shacabka magaalada Berbera xogayaha abaabulkii wacyigelinta xisbiga wadani Ali Ahmed Koshin saaka 8 subaxnimo Berbera waxaan ku waabariisanay tiyo koonfurteeda uu dagaal ka socdo xabadu ay xarad beeshay intaasi markii ay dhagaha iyagu maqleen waxaanu garanay inaanu kolleyto aniga iyo kalaba inaanu gaadho meesha ay ka socoto xabadu ka dhacayso dhinacyadayda dhul malba booy martay oo si caaran arag sanadahaaba rasaas igu soo dhawaatay waxa ka daran dumarkii iyo caruurtii waxa loo dilay si arxan darraa oo axmaqnimo oo cadaawad waxa dhacay arrin maamul xumo oo fawaaxisha oo mas'uuliyadda koobaad uu leeyahay inanka madaxtooyada ka amar qaatay ciidanka araariyada wada dadka shacabka reer Berbera falka xulay dhacay waa ka tacsiyadeeya Muuse Maxamed Samni TV magaalada Berbera